waraad islaamay team Said Serbia Saudi dhantiin maalin wanaagsan waxay ku tahay wanaagsan haddii ta markuu waraysa channel soo booqato waana subscribe saartaa inta saddex ka soo gudbo labadan bari waa kala mashquulnay aad iyo aad oo kala mashquulnay la waxa rabaa in ay sheego maalin hore video oo jaamacada ay soo dhigay dad badan waxaa jira TikTok iga soo wacayeen ama lambarkayga dhahayeen sida wax loo xariistan tus nimayo waxa rabaa in ay sheego adduunyada way hormartay 2025 la marooyaa qof walba waxa waay adduunku wuu sii fududaanayaa Google-ka waxa waay wax walba ka helaysaa translate dhihi kartaa Somali to English to Serbia dhihi kartaa ma fahant adoon qof weydiinin adaa xariisi kartid adaa isxalin kartid saani aaminsanahay waaye qof uma baahnid soo mar walba isku day marka ina adiga waxaad xalisatid oo aadan qof bin aad wax weydiinin we go right marka muhiimadda waxa waaye videogaas ay soo dhigay jaamacadaas waa jaamacad Belgrade University qof walba yaqaano waa jaamacad caan ah cid u baahan ma jirto nin walba waxa aaminsanahay inuu wixii xalisan karo intaas hadii ay ka soo gudbo maanta war waxa ay wada farxad leh odaga Serbia ugu dambeyntii wuxuu noqonayaa citizen oo wadankan ah ma sha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay farxadeeda maanta lama soo koobi karo meeshaan waxa igu jira shahaadadeedii certificate marriage ka ahayd oo aan ka wada certificate marriage kayga waaye aniga iyo dumashadiin laba baasaboorkayga meesha ku dhex jira marka waxa u socdaa hadeertan lawyer-kayga farxadeeda maanta lama soo koobi karo alxamdulillah ilaahu ma hadda sada askale alxamdulillah shukran bil caalamiin ugu dambeyntii odaga citizen oo noqonaa waqti dheer kadib waqti dheer ma ahan sida caadadii Serbia 3 sano hadii aad si legal wadankan ku joogtid oo aad gabar wadankan qabtid xaq waxa u leedahay baasaboorkooda inaad qaadatid labo hal dhibaa jira idin sheegaa maybe ma aaminaysin ka waran 3 sano markay ku dhamaato oo aad baasaboorkaaga aad sugaysid ka waran sometime waxa dhacda interview laga qaadaa booliiska tagaysin adii dumaashi ama adii xaaskaaga waxa rabtaa noqoto hadii xaaskaaga ku dhahdo odayan waa garaac jiray ama aan jiray ama gacano ii qaade oo baasaboorka ka sabray ma fahant aniga final destination ka jooga aan ka wada meesha ugu dambeysay waaye maalinta ugu dambeysay aan interviewga aan leeyahay aaday we go left here maalinta ugu dambeysay oo aan interviewgaas baasaboorka aan leeyahay dumaashadiin waxa waa inaan massage la dhaca waa massage aan sasabo lugaha u daliigo waa ma fahant intaasna ay kaftan laakiin muhiimadda waxay tahay meesha ugu dambeysay ka hor adoo taagan dad ay ku dhacday aqaana waan idin sheegay hadda ka hor meesha ugu dambeysay adoo taagan oo baasaboorka sugaayo ka waran hadii intii dumaasho hadal ay ka sheegto ama xaaskaaga ay ku dhacdo odayga waa garaac jiro kala ka waran baasaboorka sidii lagu dhaho ka noqo oo lagu siima it's here we go here hadii lagu dhaqor baasaboorka sidii isku deysan dibkeeda leedahay so anyway building-ka waa building-ka arabo waa imaaday xariifka lawyer-ka building-kiisa waa kana waa lawyer-kayga waaye qolkaanu degan yahay daaqadaanu degan yahay waa u tagaaya hadeertan documentigayga u geena insha Allah waxa rajeenayaa positive sababta waxa waaye sida sharciin Serbia markii aad gabar wadankan ka qabtid waxa waajib ah 3 sano inaad wadanka ku sugan tahay oo aad 3 sano wadanka inaad joogtid oo aan ka wada joogaysid gabar wadanka ku dhaltada 3 sano aad qabtid waxa way after 3 years ee ku dhamaato baasaboorka citizenka waxa ka horeeya permanent residence waxa la apply garanay ID-gaas maalinta aad qaadatid ID-ga wuxuu ku soo baxaa bil ama la bilot ID-gaas marka 3 sano oo visa kuugu dhaca waa visa marriage marka haysatid 3 sano ee baasaboorka kuugu dhaco 3 mar visa marriage oo baasaboorka ku dhaco kadib markay ku dhamaato waxa apply garanay waxa la permanent residence waa ID-gaas marka apply garaysid oo ID-ga aad qaadatid the day ID-ga qaadatid ama the day ID-ga ku soo baxo isla saacadaas waa apply garan kartaa citizenka maalinta citizenkaas apply garaysid waqti uu qaadan kara citizenka 2 bilood qaadan kara 3 bilood qaadan kara 6 bilood qaadan kara laakiin sida caadiyan 6 bilood qaataa citizenka ku qaadatid hadii aad luuq martidna oo bil iyo keer waa ku heli kartaa ma fahant hadii aad luuq maraysid bil waa ku heli kartaa ama 2 bilood so aniga 3 sano waxa iiga dhiman oo aan ka wada sidii official marriage-ka 3 sano waxa iiga dhiman 6 bilood waan waqtigii aan apply garan lahay sababtoo baasaboorkayga uu dhacayaa visa marriage-kan wuu dhacayaa 6 bilood kadib soo inta aysan dhicin waxa qasaba marka inaan apply gareeyo ID-ga high permanent residence hadda waxa isticmaalaya waa temporary residence oo marriage cadeynaya inaan qabo gabar citizen wadanka u dhalatay soo hadda waxa apply gareynaya marka odaygan u tago permanent residence oo ah ID-gaas marka aan helo the day ID-gaas aan helo isla marka waxa apply gareyn karaa citizenka soo insha Allah waxa rajeenayaa khayr ina soo duceeyo wixii negative wixii positive soo baxa inta waa idin soo wadaagaya hadda odaga u galaya gurigiisa inta waaye
gudaha markaa galo waa iswareysan doonaa dokumentiyada inta igu jiraan wixii aan soo kala helnaa waa idila soo wadaagaa insha allah ya alxamdulilah hooshii aasaaka u baxay waa ka soo dhammaaday alxamdulilah howl fiicanaa soo qabtay waxay noogu soo dhammaatay si qeyr ah aan ka wado natiijada aaday u fiican tahay muhiimadda waxaa waay oo keliya inaa ogaaday ahayd information ku saabsan maadaama waqtigeygii aa la joogo aan statistiinka ku apply garayn lahay sida caadiyan dowladda Serbia waxaa waay qofka haddii aad 3 sano qof muwaadin waddanka u dhashay aa qabtid 3 sano haddaad gabar waddanka u dhalata aa qabtid oo si legal ah isku qabtiin oo aadan waddanka sanadkan waxaa lagu ogolyahay waddanka inaad ka maqnaatid oo keliya 3 bil wax aanan ka badnayn halkii sana waxaa haystaa 3 bil wax aanan ka badnayn haddii 3 bil ka badan aa waddanka ka maqan tahay waxaa dhici karto waa lagu xisaabinayaa macnaha dowladda Serbia way xisaabisaa sanad ka badan sanadkii haddaa 3 bilood ka badan aa waddanka aa ka maqan tahay waa lagu xisaabinaa brother way fahanti soomaa waa lagu xisaabina inta aa maqan tahay sanadkii haddaa 9 cisho ka badan aa maqan tahay waxay kaa go-an tahay waqtiga hadhow aa visa apply garaynaysa markii la gaaro waxaa qasaba 3 bilood oo kale haddana inaad waddankii 3 bilood kaa maqneed ama aa beeldareysay inaad dib haddana usii joogto aadan statistic apply garaynin laakiin insha allah waxaa rajaynaa saa xogta ku maqlay system cusub aa bilowdaa lahay systemkan wuu cusub yahay marka ilaa idankiis waxaa rajaynaa in la ii xisaabi doonin sababtoo ta waqti badanaa maqnaay Malaysia 4 bil aa ku maqnaa ku dhowaad Jarmal aa aaday Cabaara soo maqnaay Montenegro hadan u safray Bosnia dhowr mar u safray Turkiga mar u safray safarada way badnaayeen marka totalka waxaa u maleynaa 7 bilood ka badan inaa waddanka ka maqnaay waa lagu xisaabinaa sida caadiyan aan xogta ku helay ama ambulance ii sheegeen waxay dheen sanadkii 3 bil lagu ogolyahay 3 bil ka badan hadaa waddanka ka maqnaatid waxaa waaye waxaa qasabay dheen waqtiga citizenka apply garanaysid in waqtiga aa waddanka out aa ka ahayd inaad dib u sii sugto so anyway ma aqaani sida noqon doonto ilaah baa og laakiin rajada aad u fiican tahay natiijadan way qurux badan tahay ilaahay idinkiis waxaa rajaynayaa mar aana dheereen odaga gacanta ku soo dhigaa bahalka guduudka sababtoo ay tahay xitaa anaga Soomaali haddaan nahay mar walba waxaa waaye dadka isku mid ma ahan bini'aadamka laakiin khaasatan ani ahaanteeda waxaa jeclahay dadka safraa ah realitiga dhabta marka idin sheego wallaahi maanta waxaa caawa wuxuu ilaahay ila ogyahay rasuulkiisu ila ogyahay inaan been idiin sheegayna caawa haddaa heli karo aniga iyo dumaashidiin iyo ciyaalkay waxna kala reebo ilaahna ma kala reebsiye laakiin haddii maanta dumaashi xoogaa isku toosan tahay ciyaalkii wixii aysan iga yara mashquuli lahayd aw wallaahi wadamo badan aa tagi lahay laakiin reasonka celina waxay tahay oday iska saabi ciyaal ah qofka markuu saabi ciyaal yaana way adag tahay inuu safro laakiin insha allah coming soon safaro badan ma fahanta coming soon way imaanaysaa safaro badan odayga Saciid Serbia meel walba lugtoo dhigi doonaa dawaakaasa baalka Serbiankana 3 sano lagu qaataa marka Jaanis waa dad badan Jaaniska uga faa'iideynaya Soomaali badan aqaana oo inay safraan jecel ama reer safar anoo kale ah ama doonaya bahalka guduudka inay qaataan baasaboorka Serbianka waxaa lagu qaataa muddo aanan ka badnayn 3 sano 3 sano haddaad baasaboor Serbian gabar waddanka u dhalatay haddaa qabtid oo aad 3 sano si official ah isku qabtiin way daawanaysaa hadhowda waxaa dhihi doontaa Serbia baahi anaga noo faani waxbay nooga dhigay intee joogtaa wadda aadan lahayn kooyda ku taa qaxooti ku taa ani qaxooti ma ihi qaxootina waddankan ma u diiwaan gishnigu waxaa ah nin la xushmeenayo waddankan gabar citizen qaba ah tusaale adiga qaxootiga waxaa ku tagtay Yurub ama Mareykan waxaa rabtaa inaad birin dhahdo anaga Serbia baahi waaye West Europe gaajo maxay anaga noo xayisiine ilkaas soo taagay indhaa faraka gelina fiidiyoga si fiican u daawo wixii ka anfac kala bax haddaad u baahnayn skip iska dhig laakiin hadhow haddaa comment qaab daran iyo Serbia gaajo waaye anaga Serbia de gaajata brother adba Europe joogta aad adil lahayn dhulkeena waa ka soo wada tagnay waa ka wada simanaa Europe joog Serbia joogo waa ka wada simanaa kulligeen ma fahantay soo marka dhul anaga aan lahayn aan ku faarin keena aan ku faano okay kooyda kuna hal mar aan la dhigi karaa baxa baasaboorka in naga wada ceshto waa salaama ciao baasaboorka miisku ku saaraya hal sharuuda laga yaabaa in lagu hor dhigo wallaahi kaftana maan hadda ka horna maraa youtube-ka hore uga soo sheego weydii waa fiiri kartiin haddii maalinta aad apply garanaysa citizenshipka oo aad booliiska u tegaysa interview yaraan lagula yeelanaa mogta dokumentigan waa geena interview yarna waa laga qaadaa haddii gabadha dumaashi maxaaskaaga haddii maalintaas ku dhad odaga waa ii jucin jiray aw baalka bul allah ku siiyo waa lagu diidaa negative indhaha lagaa gelinaa haddii laakiin dumaashi wax positive fiican ay kaa sheegto ay dhahdo odaga waa fiican yahay saan waa odayga nasab waa inta waaye haddii waxyaaba badan oo macaan ay kaa sheegto bahalka laba cal isweydiimayso fartaa lagaa saaraa laakiin haddii dumaashi ay kaa eed sheegato dhahdo ninka waa garaaci jiray aw baalka waa ka sabraysaa soo aniga waxaa waay daadi waa idiin sheegay waqtiga markii la gaaro aan tagi doono police stationka mar dhow dumaashi waxaa waa labadaas haween oo ka horeyso oo jimceena waa masaajeena ma fahantay
ya intaasna iga kafto anuu intaasaa lagu soo caayin anyway guys sida kuma dheeraanayo waxaa la joogaa gabagabada fideogii alxamdulilah si qurux badan maanta fideogii si qurux badan maanta interviewgii ugu soo dhamaaday ama informationka u baxay ilaa mahadiis waaye aad iyo aad u faraxsanahay farxadeeda lama soo koobi karo dokole waxaa dareemi karo ragga bahashan soo maraa ogaan karo macaanta ama xanuunka ama raaxada ama qabowga ee leedahay baalkaas markaa gacanta ku dhigaysa guduudka aad iyo aad waxaa idiin rajeynayaa caafimaad iyo cumar dheer dhammaantiin waxaa inoo balana muuqaalka xigo waxaa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka aad daawateen oo anigoo idila Saciid Serbia waa anigoo Saciid Serbia idila maalin wanaagsan ciao